خبيلتو عبلتو ورخبيلتو ده عبلتو روح المحا أو تلك ماشي لك يعني النيو سيقو عن إيفا بس إسواميني باش نجيب قبل عماشة كتجني مع عماشة كوا تجني ماشي حراجي سالفة waa koox arday ah bartooda TikTok ee school team waxaa ku xiran in ka badan 10 milyan oo daawado ah si bartaan aad caan uga noqoto waxaa muhiim ah inaad taqaan xirfadaha dadka ka qoslinta aragtiyo muuqaalo kooban laga sameynayo iyo habjilin macaamiisha soo jiidan kara يا كوما قبل ما معصيات الأرض تادو إيجا تكتجوجها كقريب aas-aasaha kooxdan iskooleeda ah waa Cabduqaadir Cali Maxamuud marka la joogo TikTok waxaa la yiraahdaa Bilaal Bulshaawi waxa uu ka hadlayaa ku soo biirida TikTok maalmaha kamid anagoo iskuulka joogno waxa go'aansan markii inay fikrad isku darsano fikradii aad duubnay anagoo jecleen inaan galabtii guriga ku duubno wiilku wuxuu yiri marka galabtii aniga shaqaan leeyahay wiilkuna wuxuu yiri bareefad leh anigana gurigaan iska joogo markaas waxaan go'aansan markii inaan iskuulka iskaga qabanno iskuulka markaa ku qabanay shooba dadka waxay rabeen wax qurux badan oo isheeg talent ah oo isheeg challenge cusub oo isheeg hal abuur cusub hal abuurkii la nimid haddana dadka waxay xiiseynayeen haddana uniformka dad isku dhar waa xiiseynayeen haddana wixii quruxda badnaa farsamadii aanu aqoonay dadkii oo talent leh iskuulka dhexdiisa ku sameeyeen markii dambe waana la qurxanaa weysay iskuulkii laakiin ilaa hadda waa wadnaa barnaamijka luuq ku caan baxay TikTok jiro oo dhabarkeena ku yaalo marka barnaamijka waa sii socayay videoga kala kac marka waxaa go'aansan marka inaan sameysano hashtagaas aan kala kacsano hashtag hadda wuxuu marayaa viewskiisa 12 milyan hashtag waxa la jeednaa wax anaga noo aqoonsado oo hadhowda noo soo raacay Bilaal Bulshaawi iyo saaxiibadiisa waxay aaminsan yihiin in jiliinkooda uu daawo u yahay dad badan oo isku buuqsan faa'iidada laga leeyahay waxay tahay in Soomaalida dad waxa jiraan stress haayo dadkaas horta daawaan u naqanaa oo waa daaweynaa waxaan daawo ugu naqanaa ayagana soo wacay waxay leeyihiin stresska naga baabi'isiin anagoo xanuunsan anagoo waa la rabno idinka in ku qoslo marka waa ku soo wacayaan waxay ku leeyihiin hambaliyo commentiyada xitaa da akhriso arki kartaan marka aad iyo aad u mahadsan dadkana dhaqaajiya waa dadkaas نيو حبضان دعوسينا كورجري يا براد مالمان قروحدادا كشكسنا 40 ka ku jirtaaye markay dhimatid soo wac hee maxaa ku soo wac bro ambulance oo isbitaalka ka gaarsiisa oo ku soo dir lahaye soo wac okay bro taleefanka la igu dhageysanaya isku imaatika dhalinyaradan kaliya maaha in ay dadka ka qosliyaan ee xiliyada qaar waxa ay wada jir u diyaariyaan casharada iskuulka oo ay hadda marayaan sanadkii ugu dambeeyay ee dugsiga sare waxa ay ku haminayaan in ay bandhigooda magac ka sameeyaan magacayga waa Xawaaye Sikriye Maxamed Cabdiraxmaan oo ku magac dheer Armaan Maxamed waxa kamid ahay team school waxaan nahay Afrika wallahi waxaan horta ku dooranay dad comediya oo macnaheed ka qosliyo inaan noqdo horta ani ahaantayda waan jeclahay inaan noqdo qof social media laga garanayo dadkana ka qosli kara oo talent leh بعدين waxaas waxa jeclaystay dadkina inay ka qosolsiyo waqti aasiyo oo wadada kaliya oo macnaha ay furan ay tahay arkay TikTok aasinu yahay maadaama asiga waqti badan ka qaadin oo 15 sakin yahay 15 sakin macnaha wax way ka gelimaysa insha Allah siday waan soo dhigi jiray team isku xiran oo naqare magaca musdahan magacayga Cali Cabdullaahi Cali waaye waxa magac dheerahay Cali YG wallahi ana hadda macnaha wax kala gooni ah isku imaano dad Soomaalidan dagaalada iyo burburka iyo waxaas ma arkano dadka badan stress ku gidi marka hadda qof waxa arkaysaa oo xanaaqsan hadii videogaaga daawato inuu ku qosasho qosolkaasita marka dadka waxa uu aragnaa inuu stress ka bixinaa oo daawo u yahay dad badan oo waan aragnaa maxaa ku dhahayo video marka qoslisid wallahi kal ilaaba oo qoslay daacada oo qoslay videoyaashan oo kale noo soo badiya waa mahadsantihiin maanta waxaan ansixinaynaa sharciga xaqsiinta dadka dhaqdhaqan gudoomiye caloolay khalad waa oo sababna xaqa dadka laga soo qaaday ayaa ka baahan waryaamahu waa mashruuc nooga bax shirka ka bax run
marka aan dib u celiyo maskaxdayda 10 sano ka hor oo muqdisho jawigeeda uu ahaa mid dagaal hadda oo ah mid degan waxaa ku muuqanaya in Soomaalida qaar ay social media ay ku soo bandhigayaan waxyaabo maskaxdooda ka maqnaa xilligaasi oo dalka uu ku jiray Maxamed Yaxya Jino dalka TV muqdisho